madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ee Muusa Biixi ayaa maanta safar ugu kacay dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaana madaxweynuhu martiqaad ka helay dhigiisa dalka Djibouti Ismaaciil Omar Geele. madaxweyne Muusa Biixi wafdigan hogaaminaya ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Cagaal International Airport magaalada Hargeysa. safarka madaxweynaha ayaa qaadan doona maalmo kooban waxaana martiqaadkaasi madaxweynaha ku weelinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faraton, wasiirka cadaaladda mudane Cabdiqani Maxamuud Caateye, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Sareeyagaas Cabdullaahi Fadliimaan iyo taliyaha ciidanka badda Soomaaliland Sareeye Guuto Cabdi Xasiid Cali. safarkan madaxweynaha Soomaaliland maanta ugu kacay dalka dariska la ah Soomaaliland ee Djibouti ayaa noqonaya safarkii koowaad ee madaxweyne Muusa Biixi uu dalka dibadiisa ka baxo tan iyo intii xilka la wareegay 14 bishii December sanadkii 2017. iyadoo safarka madaxweyne Muusa Biixi saakana wax badan kaga bedelnaa sidii hore looga bartay madaxweynayaashii qarankan Soomaaliland hore u soo maray. mana jirin gaadiid fara badan iyo sidoo kale ciidamada tiinikada ee lagu yaqaano inta badan in ay dabagalaan madaxweynaha xilligu ka dhoofiyo dalka, iyadoo sidoo kale aana jirin wadooyinka oo inta badan hakad la geliyo inta madaxweynuhu dalka ka ambabaxayo ama se uu soo degayo. ha yeeshee taasi bedelkeeda madaxweyne Muusa Biixi iyo wafdigiisa ayaa ka mid ahaa gaadiidka sida caadiga u maray wadooyinka saaka. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarim warbaahinta STN Hargeysa.